السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada channelka Lawrad oo kala soo karsan YouTube. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay warqad ee soo dirtay World Bank. Waxaan ku arkaynaa marka warqadaas waxa loo soo diray dowladda federaalka, warqadaas loo soo dirayna March dhamaadka waa bishan dhamaanaysa oo March bay soo dirtay World Bankiga. Marka warqadaas waxa loo soo diray wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka. marka warqadan waxa weeye World Bankiga waxay dhahayaan dowladdii waxa wali laga laayahay xisaab xirkii oo sanadkii dhamaaday 2022 xisaab xirkeedii baa wali laga laayay. marka sadarteeda muddo 2 sano ku dhow haddii aan dowladdii xisaab xir laga helin, marka sadarteeda waxaa la joojinayaa mucaawanadii ee World Bankiga ay siin jirtay dowladda federaalka. marka muddo 2 sano ku dhow ama sidoo حسن شيء وحيلك ولوري وهاي حسابيركي أو لجسوي دولة فدرالك ميدين. marka warqadii hadda isku arkayna barsan ugu jeedaan waxa weeye warqada hal soo diray 2024 March. barsan intuu jeedaan hal dahay dowladii waxay la daahaday bal dahay xisaab xirkii oo laga sugay. marka xisaab xirkii oo sanadkii dhamaaday 2022 waxay ahayd ugu dambeys in la soo diro June sodankeeda 2023 laakiin salama sameeyay marka taas waxa way gafkaas waxa way waxay u dhigantaa in dowladdu ku dhacday heshiiskii ay kala galaan dowladda federaalka iyo World Bankiga. marka waxa way gafkaas oo la sameeyay darteeda iyo xisaab xirka oo wali aan la keenin muddo 2 sano ku dhow waxa way macnaheedu waa tanaab World Bankiga waxay joojinaysaa mucaawanadii ay bixin jirtay lacagta ku bixin jirtay baa la joojinayaa sadarteeda. normalhan dowladnimada waxa ka kooban in ay dowladdu dadka canshuur ku soo ururso oo lacagta isticmaasho oo marka dadkii la tuso dowladdii sida lacagta u isticmaasho xisaab xirka waxa dhan way informationkaas in dadweynaha u sheegto bay ahayd. haddii aan la samayn karin waxa way maxaa jigada loogu dhigayaa maxaa kursiga loogu dhigay haddii aan hawsh wixii uu basic ah haddii aan la qaban karin. marka mas'uuliyadda waxa loo dhiibanaya dad aan mas'uuliyad ka bixi karin ama aan u qalman mas'uuliyadda in loo dhiibto. marka arrintan waxa weeye xisaab xirta oo dowladda laga laayahay waxa weeye laba khasaaro weyn bay dadweynaha dalka Soomaaliya soo gaarsiinaysaa. khasaarada ay soo gaarsiinayso waa abtanba isla warqadda hadaa arkin bay ku qoran tahay. marka waxa weeye khasaarahaas waxa weeye in oo mucaawanada ay dowladdu heli jirtay in la joojinayo. haddana intaas kaliya xitaa maaha saautiin waddankan dhaqaalihiisa burbursan yahay. waxaa loo baahan yahay dhaqaale waddanka in la dhiso oo lacag badan la soo deemiyo. marka waxyaalaha laga rabo dowladda inay samayso waxay in oo lacag la soo deemiyo si loo dhiso jidad, si loo dhiso tareemooyin, si loo dhiso dekedo, sida shaqo abuurida dadweynaha lagu sameeyo. marka lacagta la soo deensanayo dawaana tusi karsid way dadka investorska in meesha ka jirto dowlad oo lacag lagu aamini karo. marka investorska waxa ugu horeeyay arkayaan waxa way xisaab xirka way dowladda. marka waxa weeye halkaas wax ka soo baxaysa xisaab xirka marka waxay sheegaysaa in meesha ka jirto dowlad oo lacag lagu aamini karo ama inay tuugo ka jirto. داوديال برنامج الأسبوع كا مرحبا حالنا بحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.